خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. waxaa jira taariikhda macaariig aad u fara badan oo dhacay una dhaxeeyay xaqa iyo baadilka. waxaa kamid ah kuwa la garanayo oo ay taariikhdu xustay iyo kuwa aan la garanaynin. waxaana kamid ah macaariigtaas kuwa sabab u noqday horumarka ummadda muslimiinta iyo kuwa ka qayb qaatay dib u dhac ku habsaday ummadda muslimiinta ah. macaarikadan aan ka hadlayno waxay kamid tahay macaariigta uu ku faani karo qof kasta oo muslim ah, waxaana ay astaan u tahay sharafta ruux waliba oo ahlu tawxiid ah. macaarikadan waxay kamid tahay oo ay dhacday duulaanadii loo yaqaanay al-xuruub as-saliibiya, waxaana loo yaqaanaa macaarikadii balaad, halka kutubta ama masaadirta qaarna u garan og yihiin tal cifriin, balse saliibiyiintu waxay u yaqaanaan sahlu dam ama saaxatu dam oo ay ula jeedaan toggii ama goobtii dhiigga. sababta loogu bixiyo magacaas ayaa ah in rag badan looga laayay saliibiyiinta kadib duulaankii saliibiyiinta ee koobaad kuna beegnaa 490 ilaa 493 hijriyada, kaas oo ay ku qabsadeen magaalooyin fara badan iyo imaarado sida Andakiya, الرها بيت المقدس iyo Darabulis, kuwaas oo dhammaantood ka wada tirsan dhulweynaha barakaysan ee Sham. waxa uu dareemay oo uu arkay Roger oo ahaa boqorkii saliibiga ahaa ee gumaysanayay magaalada Andakiya, magaalo raacsanaan jirtay Suuriya, balse hadda ay maamulaan Turkiga wixii ka dambeeyay 1939 inay aad u dardargelisay imaaradii ka dhisnayd Xalab. wuxuuna go'aansaday inuu ku duulo si uu ugu darsado maamulkiisa. waxaa soo gaaray amiirkii magaalada Xalab ee ahaa al-Amiir al-Ghazi war sheegaya in saliibiyiintu duulaan ku soo yihiin magaalada Xalab. waxa uuna go'aansaday inuu u diyaar garoobo sidii uu uga hortagi lahaa duulaankaas. waxaana uu mujaahidiintii xaq u dirka ahaa ka soo aruuriyay magaalooyin kala duwan oo ku yaala Sham. waxaana u suuro gashay inuu isku keeno ciidamo gaaraya 20,000, halka riwaayadaha qaarna ay tilmaamayaan inay gaarayeen 40,000. waxaana ku garab siiyay arrinkaas dhaqtakiin amiirkii magaalada Dimashq iyo amiirkii Shiisar as-Suldaan ibn Manqad, kaas oo ahaa mid ku caan baxay inuu ka qayb qaato dagaalada jihaadiga ah ee waqtigaas socday. waxaa dhaqaaqay ciidankii uu hogaaminayay al-Ghazi asagoo u jihaystay dhankaas iyo magaalada Andakiya. markii uu gaaray ciidankii muslimiintu tag u dhow mandaqada Artaax ayaa ciidamadii muslimiintu waxay si kada ah u weerareen askartii gaalada ahayd ee hoostagaysay boqorkii Andakiya. waxay ciidankaas tiradiisu gaaraysay 5,000 oo isugu jira kuwa gaadiid wata iyo kuwa infantry ah intaba. waxaana ciidankaas hogaaminayay Roger. isla markii waxa uu gurmad u dirsaday baldawooyinkii labaad oo ahaa gaalkii xukumayay xilligaas Baytul Maqdis, kaas oo horay ugu ballan qaaday inuu soo gurmad doono asaga iyo xaakimkii Darabulis ee Bunsi, balse waxaa ka soo hormaray gurmadkoodii weerarkii ay muslimiintu ku kadiyeen Roger iyo ciidamadiisa. bishii Rabiicul Awwal ee sanadkii 513 hijriyada kuna beegan 28 Juun sanadkii 119 miilaadiyada ayaa labada kooxood waxay fooda isku dareen macaarikadii caanka ahayd ee Tal Cifriin. waxaana ay saliibiyiintii ku hoobteen gamoonadii iyo falaarihii muslimiintu ridayeen ee aadka u faraha badnaa. halkaasna waxaa lagu dilay hogaamiyihii saliibiyiinta ee Roger. waxayna saliibiyiintu u yaqaanaan duulaanka saaxadii dhiigga maadaama meeshaas tira aad u fara badan looga laayay. waxayna muslimiinta uga dhigneed guushaas guul aad iyo aad u weyn oo waliba dhan kasta ah, maxaa yeelay waxay soo celisay haybadii muslimiinta. sidoo kalena waxaa meesha ka soo muuqday isku dheelitirnaan laba quwadood ee waqtigaas hardamayay. sidoo kale waxaa aad u niyad jabay saliibiyiintii oo waqtigaas dardar xoog leh ku socday, iyadoona dib u dhac ku riday saliibiyiintii muddo dhowr sano ah. waxaana magaalada Xalab si buuxda u maamulayay araatiqadii muddo 6 sanadood ah. waxaana meesha ka baxay xaakimkii saliibiyiinta ee fadhiyay Andakiya, kaas oo aan helin wax bedela. waxaa soo shaac baxay magaca al-Ghazi, kaas oo ay hadiyaduhu uga imaanayeen dhammaan magaalooyinkii muslimiinta. waxaana sidoo kale hadiyado aad u fara badan u soo diray amiirkii cusbaa ee Cabbaasiyiinta xilligaas al-Mustarshid Billah. waxaana gabayo ammaana u soo dirayay dhammaan shucaradii muslimiinta ee waqtigaas jiray. tilaabooyinkaas dhiirigelinta ahna waxay kor u qaadeen macnawiyaadka al-Ghazi, kaasoo sii joogteeyay weerarada uu ku qaadayo saliibiyiinta. مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا.